nin iyo naag soomaalida fiir maamaha ay dejisay nin iyo naag colla ma aha nabadna ma aha xagay ku qoran hadii soo dhow maxamed kuma helaysa soo barabdiina shafaacadiisa ka qayb gasho oo xawlkiisa aad ka cabto oo jannada aad la gasho isaga dhaqankii nabi maxamed yeelo naag weeye maxaa laga sheegay nin iyo naag soomaalida fiir maamaha ay dejisay nin iyo naag colla ma aha nabadna ma aha xagay ku qoran warwaanaag ajnabi waxa furayaashaada ha u dhiibi ka ilaasho furayaasha iska ilaali ninka iska ilaali iyadoo dardaaran qabtayba guriga soo geli adigiina adoo dardaaran qaba gurigii soo geli laba dhurwaa iskaadaysaa laba bahal iskaadaysaa lababa gabadha waxaa la rabaa calaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaa ka mid a aayaadka lagu garto waxdaariyadiis inuu naftiina dhexdeeda ruux dumara ka hagaajiyey inaad u hooyataan ood weheshataan dhexdiinana wuxuu yeelay jacayl iyo maxabo naxariis buu yeelay macanaa marka hore ee gabadha ay yar tahay ee waxeedu wada rakiban yihiin jacayl baa meesha jooga waa la isjeclaadaa marka dambe ee la duqoobana in lagu wada joogaa la rabaa naxariis labada ruux inay isu naxariistaan oo ay garabka isqabtaan oo ay rumayga isu keenaan oo ay isu qabeeyaan oo koodii xoog badanka kale u garab qabto labada ruux sidaasaa laga rabaa waa ruuxii raba jannada ilaahay inuu galo wey nabi maxamed markii caaisha la weydiiyey bal ka waran caaisha nabigu guriga markuu jooga muxuu qabtaa kaana fii mihnati ehlihi ciddiisu u shaqayn jiray nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigu ciddii u shaqayn jiray kabta gooday buu dooni jiray marada dilacday buu tooni jiray bal waxaa sugaba nabigu inuu burka xataa qoyn jiray canjeerada inuu qoyn jiray hada canjeera islaamka soomaaliya u qoyn iyadoo 9 bilood joogto xaamilo ah oo kici karin oo xagga kale sakaraada naabakeeriga isiga wala kale ku dishay oo adiga soo qaadatay adaaba xoog qabe oo fayo ilmana calooshaada ku jirin waxyaalaha qaar kood Soomaalida ku nin iyo naag colla ma aha